halkan waxaa ka muuqda fadeexadii ugu weyneed abid ee dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ay samayso iyo maayarka magaalada Hargeysa oo mulkiyad u soo saxiixay muwaadin doonaya inuu dhisto wadada kaliya gurigayga hormarta. wadada kaliya gurigayga hormarta waxay ku cad tahay sawirkan. barta cas waa gurigaygii warshada macmacaanka samaysay ee buurta kala jeexan iyo baloorka gurigayga wadada u dhaxaysa weeye meesha mulkiyada loo samaystay ee la dhisanayo maanta ee dhismaha lagu wadaa. waa wadada sawirka satellite-ka ku cad. waxaan doonayaa dareenka dadka reer Somaliland ay ka qabaan su'aashaydan ma xaq baa ma xeer baa ma inoo xalaal baa in wadooyinna la dumiyo oo cagaf la mariyo, wadooyinna la bixiyo oo dadka laga iibiyo oo dadkuna dabeedna ay ku dagaalamaan. ma xaq baa ma xeer baa ma inoo xalaal baa. arrinkan waa dhab. wadada halkaa ka muuqata gurigayga iyo warshada u dhaxaysa waa la iibsaday, rag baana dhisanaya hadda. anigu waxaan ahay qurba joog ku nool qaaradda America, California ka imanaya. wixii meesha ka dhaca waxa ka mas'uuliyadeeda qaadaya maayarkii mulkiyada u sameeyay iyo dawladda hoose ee magaalada Hargeysa. Allahumma hal balaqtu. aan doonayaa in aan ogaado dareenka shacabka reer Somaliland waxay ka oranayaan ninkii ku yiri gurigaaga iga iibi ee aad tiri kaa iibin maayo ee dabadeedna kuugu hanjabay anigoo reer hebela ayaan waxaan iibsanayaa wadada gurigaaga hormarta oo dhisanaya. maxaad ka yeeli lahayd maayarka magaalada Hargeysa? maxaad ka yeeli lahayd wasiirka arrimaha gudaha? maxaad ka yeeli lahayd taliyaha ciidanka booliiska? maxaad ka yeeli lahayd gudoomiyaha maxkamadda sare? maxaad ka yeeli lahayd gudoomiyaha baarlamaanka? maxaad ka yeeli lahayd gudoomiyaha golaha guurtida? maxaad ka yeeli lahayd guddiga cadaaladda? maxaad ka yeeli lahayd golaha xukuumadda? maxaad ka yeeli lahayd madaxweyne ninkii gurigaaga hortiisa wadada gurigaaga kaliya hormarta lacag intuu ka bixiyay malaayiin dawladda hoose ka iibsaday dabadeedna doonayo inuu dhisto hadda dhismana ku wada hadda gurigaaga hortiisa wadada maraysa? ma cadaalad baa ma xaq baa ma xeer baa ma inoo xalaal baa? waxaa muddo qarni laga jooga hadda ku cad taariikhda dadka afka Soomaaliya ku hadla oo dhab ah, kuna jirta gabay cajiiba oo dadku wada yaqaano. rag cadaalad waayay sida cawsha kala yaaci. waa dhab taariikhda. luqadda afka Ingiriiska loo yaqaanana waxaa ku jirta maahmaah odhanaysa if there is no justice there is no peace. waxaan u sheegayaa gudoomiyaha maxkamadda sare, waxaan ogeysiinayaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hargeysa, waxaan ogeysiinayaa wasiirka arrimaha gudaha, waxaan ogeysiinayaa maayarka magaalada Hargeysa, waxaan ogeysiinayaa golaha cadaaladda, waxaan ogeysiinayaa guddida cadaaladda Somaliland, waxaan ogeysiinayaa maxkamadda sare ee Somaliland. wax walba oo dhib iyo dhibaato halkaa ka yimaada gurigayga hortiisa qaadan maayo, yeeli maayana wadada gurigayga hormarta dawladda hoose ha iibiso, maayarka magaalada Hargeysa ha iibiyo. qaadan maayo oo yeeli maayo. wixii meesha ka dhaca waxa ka mas'uula ninkii iibsaday wadada gurigayga hormarta. waxa ka mas'uula maayarka magaalada Hargeysa. waxa ka mas'uula cid walba oo fulinta sharciga ku shaqale. waxa ka mas'uula wasiirka arrimaha gudaha. waxa ka mas'uula taliyaha ciidanka booliiska. waxa ka mas'uula gudoomiyaha maxkamadda sare. wixii meesha ka yimaada ee shaqaaqa iyo dhib iyo dhibaato ah waxa ka mas'uula ninkii dhulka wadadayda horteeda gurigayga hortiisa wadada maraysa ninka dhisanaya ayaa ka mas'uula. waxaan u sheegayaa magaalada Hargeysa
haddii cadaalad laga waayo oo reer heber la isugu hanjabo oo reer heber wadooyinka lagu dhisto oo maarayaha magaaladu maayarka magaaladu uu warqado beena oo mulkiyad beena u sameeyo oo maayarka magaalada iyo golaha deegaanka ee Hargeysa ay waxba ka sameyn waayeen hawsha in dhibka meesha ka yimaada ay mas'uuliyadeeda qaadan doonaan waxaan aad uga rajaynayaa madiyada ama new madiyada in ay dareenkooda ka dhiibtaan oo ay xaqiiqada raadiyaan dhab ma tahay wadada gurigeyga hormarta in mulkiyad loo samaystay wadada gurigeyga hormarta waa wada caana waa buurta kala jeexan waa wadada kaliya aan leeyahay waxa inoo blogayga iyo warshada macmacaanka u dhaxaysa madiyada waxaan ka rajaynayaa inay baarid ku sameeyaan oo ay xaqiiq raadis noqdaan oo ay xaqiiqda soo taabtaan cidii iibsatay iyo cidii iibisay maayarka magaalada Hargeysa hadduu wado dadweynaha oo dhan u siman uu mulkiyad u sameeyay oo sharciyad lagu dhisto u sameeyay inay xaqiijisaan baan idinka rajaynayaa waxaan rajaynayaa maayarka magaalada Hargeysa hadduu ceeb ka salin yahay inuu arrinka uu maxkamad la tiigsado dadkii mulkiyadda magaciisa ku samaystay iyo dadka dhisanaya wadada gurigeyga hormarta haddii aan cadaaladda iyo kala dambeynta iyo nidaamka loo wada hoggaansamin haddii sharciga loo wada siman yahay nin xoolale iyo nimaan waxba haysan madaxda qarankuna dadkooda isku si ugu wada shaqayn lahaayeen waxba may xumaadeen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh